السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإد السلامي سيدان هورا إذن كاغا بلان قاداي inaan ingiriiska inoo bilaabo si maxay ahayd aan hoos uga soo bilaabo sidii dadka qaar maxay ahayd hore u yaqaaneen dhaxda uga la qabsadaan dadka aqoonina bilaaga uga qabsadaan dad badan ay iga soo codsaday inaan bilaabo marka insha Allah maanta waxa bilaabi doona xuruufta hadii eebaha awood la idmo marka sidii tan ku bilaabayna waa mahadsan tahay hadii aad nala socotay mar walbo hadii kalena ku soo dhawow channelka anfac fadlan subscribe samee adiga oo mahadsan waan sii bilaabi doonaa marka ereyga koowaad waxa weeye a waxa macnaheedu apple ama tufaax b banana oo loo yaqaan moos c for car gaari ama baabuur sida u taqaanid d door albaab E for elephant waa maroodi F for fire waa dab G for grass waa coos H for house waa guri I for ink waa qalinka qada J for jumper waa fanaanad K for kite waa abitay L for leaf waa caleenta geedka M for monkey waa daanyeer N for night waa habeen O for oven waa foorno P for pen waa qalin Q for queen waa boqorada ingiriiska Queen Elizabeth R for rain waa roob S for snake waa mas T for tall waa dheer qof dheer oo kale U for umbrella waa dalad V for vest waa garan W for watch waa saacad X for x-ray waa raajo Y for yellow waa jaale Z for zip waa jinjeer waa mahadsantihiin sidaa noola socoteen insha Allah waa inoo mar dambe u xiiso leh hadii eebaha awood la idmo ku xirnoo fadlan hadii aad wax ka anfacday dadka la sii wadaag insha Allah adiga oo mahadsan waa inoo mar dambe u xiiso leh hadii eebaha awood la idmo mahadsanid assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu